nahay waan isku ururnaa waan isku tiirsanaa waxaasan horta waxaan maqlayaa on the iscaaj ka sodohda yaanay guriga ku noolaan ma yasa taaba laga hadlay horta xaween anigu san guriga ku fahansanahay isagu suu guriga ku fahansan yahay ma garatay anu gurigan ka yimaaday isna guriga ka yimaaday anu dhaqan baleeyay dhaqan buleeyahay laakiin ta wax kasta kala saaraysa iyo tasaa'ulaadkan iyo fikirkan iyo hamiga warwarkan waa diinta kala saaraysa leeno hadafkaygu waxa weeyaan qoys fiican oo muslima inaan abuurno Soomaha dhaqankii caadadii baa waxay u bateen inantu inay marka hore feeras iyadoo ninka hooyadii aragba ay nacayb qalbiga gashato inaanu ayna marnaba islaanta wanaag ka dhaxeeya aanayba jirin dabadeetana way dhacday iyadoo qalbiga ku haysata nacayb inanka hooyadiisa oo iska caado ah ayaabay dhacday in gurigii la galo oo inankii guursado dabeetana islaantii way timid dabeetana nacaybkii iskaga qufulaa inanta markii horeba ayaa de marka kelmad la yiraahdoba ay oranaysaa naayigada anigu waxa qaban maayo igada marka horeba habluhu way neceb yihiin inay sodoodu guriga ku noolaato markay dadku isku bataan waliba sodohda markay timaado cuntada comment ka sameynayso milix waa bilaadadan inankayga wuu caatoobay waxa meesha uqdad baa imaanaysa waa la is aamin dibaato badan hooyada ina ka dhasho baadidinta mise ilaa hooyada baadidinta hooyadina haska joogto gurigeeda because waxan waa wax cusub ya waxaan rabnaa inaan challenge kan waa marriage weeyaan waa wax aad u culays badan mid kale adigoo xaajigiyo oo soo shaqeeyay maanta dhan waxa gurigii baad imaanaysaa anigoo afkii taagi waayo because hooyada ayaan isdinay ama wax naga dhacmaray maalintii during the day marka anigu waxaan oranayaa wali hooyada ma ka shaqaysateen ama ma kaaga shaqaysay markii iyada la guursaday sidii ahayd iyo sidii guriga loo noolaan jiray ha waxay tiri sodohyaasha gurigooda ha joogaan horta sodohdu way dhib badan tahay run baa fiican guriga markay ku soo biirto buuq baa ku soo biira waxyaabo aan banbanaaneen bay wiilka u sheegtaa laakiin soo maaha odagaaga hooyadii Soomaha seenad u ixtiraamay in guriga kula waan ixtiraamayaa laakiin sodohday gurigeeda joogto maxay guriga ka soo doonsan kana la igu qabaa haddeen halkan afafaala iga baxay wax la yiri gabadhu guriga iyadana lagula noolaan karo waxay ila tahay wax dhigteeda ka weyn wax la yiri ishaaduna waa kulada dhigteeduna waa ka weyn aniga arrin mushkilada ayay ila tahay in Soomaalidu waxaan dad isku tiirsan oo noloshoodu aanay kala maarmin oo noloshu dad qofka wax ay inta kale soo gacan qabto ayay ahayd laakiin waxa madaanimkiisa bulshada shirada badashayo waxyaabo kale inta soo raadx kale aqoontii aynu baranay waa aragnimadii ay keentay inaynu la jaan qaadno dhaqanaynaan lahayn oo kontagas reer galbeed dadka lahaynaan lahayn qaabkan loo nool yahay qofku leeyahay kaliya aan noolaado ehel kaliya dad kale yaanay imanin caruurtan intan dambe jiilka lama barbaarin waxay tahay sodohdu waxay tahay oo waxay ka siyaaminsan wax qiil qaal oo la yiraahdo sodohdu markasta waa qof ka soo horjeeda sodohdu qayb ma ka tahay marka burburka qoyska maya boqolkiiba 80 kama aha way dhici kartaa in sodohayada qaar ay si yar fikir kale u aaminsanaadaan waa dadka aan aqoonta lahayn baan oran karaa dalahan anigu waxaan qabaa in mas'uuliyadda guriga ay inantu leedahay wixii xidhiidh iyo waalidnimo waa halkii waad ogoshahay hooyada ku dhashay inaad ogolaansho ka qaadato bari markay inay guurso waan la qabaa iyadoo weydiinayaan ogolaanshaha weydiisanaya sodohdii hore iyo sodohda imkiin aanay soo mid bahay maxaa farqiga u dhaxeeya waxa kala dhaxeeya sodohii hore gabadha way guubaabin jireen inankana way guubaabin jireen waa labadaba de waalid baa loo yahay laakiin imika dambiga oo badan wuxuu ka bilaabmayaa sodoha isfahan waa ka dhaca inantan generationkii dambe ah iyo maamadan inankaagii wanaajiyo gurigiisii reerkiisii ka fikir ah un mooye horta waxay xumaynayaan anu 20% baan oran karaya abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmil